ciidamada amniga Puntland ayaa maanta waxa ay kormeer howlo shaqo ku tageen degmada isku shuban iyo tuulooyinka Kobdhaxaad, Dharjaale iyo deegaanada hoostaga oo ay dhawaan ciidanka BSF kula dagaalameen kana sifeeyeen kooxda argagixisada ee Daesh oo ku dhuumaalaysata qaybo kamid ah buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari. dhanka kale ciidanka BSF ayaa waxa ay deeq daawo oo kala duwan gaarsiiyeen isbitaalka daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee degmada isku shuban. sidoo kale saraakiisha ciidanka BSF ayaa dadka shacabka ah ee ku nool deegaanadaasi ku dhiirigeliyay in ciidanka ay kala shaqeeyaan amniga si looga hortago wixii wax u dhimaya amniga. qaar kamid ah odayaasha deegaanka ayaa soo dhaweeyay ciidanka BSF ugana mahad celiyay deeqda daawada ah ay soo gaarsiiyeen degmada isku shuban iyo deegaanada hoos yimaada. sidoo kale waxaan ugu mahadceliyo sida sharafta iyo midgaale ay ula shaqeeyaan dhaawaca caafimaadka degmada markastaba waxaan soo oran karaa 3 bilood markii laga joogo waxay keeneen daawadaas oo ku salaysan baahida markaa taagan hooyo dhallaanka ha ahaato ama daawada emergency-ga oo dadka hooyada ha ahaato ama daawada baabeysada baalaha hoos oo dhan ha ahaato iyadoo weliba sixiri ay keenaan degmada iyo tuulooyinka way siiyaan taa waxaa leeyahay yaa waxay ka sii kara sixiriga oo runtii daryeelnimada leh lagu keenaan maanta halka soo dhigtaa meesha deegaanka yaanoo waxa weeye maamulka caafimaadka ah oo kala wareegaya dawadaas oo isugu jirta qaybo badan si taliyo uga dhawaajiyay hooyada dhallaanka ah ma mahadcelinayna ciidanka BSF marwalbaba sida aad noo soo booqateen waa idinka mahad celinaynaa alxamdulilah rabbil caalamiin annagu waxaan nahay reer isku shuban soo dhawaada horeyna waan ula soconay xaaladda soo sarkaalka uga warramay weeye annagu waa fiican nahay reer isku shuban haddaan nahay alxamdulilah rabbil caalamiin qariyada tan aan ku noolahay waa ku nabad qabnaa waa alxamdulilah rabbil caalamiin saraakiisha waxaan leenahay inaad soo dhawaataan baanu jecelnahay inaad nala joogtaan baanu jecelnahay inaad nala degtaan baanu danaynaynaa waana idinku soo dhawaynaynaa degmada isku shuban horey waxyaabo aad noogu qabateen oo xagga caafimaadka aad naga tarteen daawooyinna waanu na soo gaari jireen oo waa ogeyn waa soo dhawaynaynaa waynu soo dhawaynaynaa magaaladiina ku soo dhawaada isku shuban ku soo dhawaada isku shuban waa amni run ahaantii ciidanku waa ciidankayagii dawladdu waa dawladayadii aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa sidaa u timaadeen oo aad xilligaa u soconaysaan waa idinka mahadcelinaynaa. mid ka mid ah saraakiisha ciidanka BSF ayaa dhankiisa bulshada ku dhiirigeliyay inay ka qayb qaataan xasiloonida amniga guud ee Puntland ayna soo gudbiyaan in xogta sharwadayaasha ay raadinayaan ciidanka amniga Puntland ee BSF. maanta way idinku soo leexano way idin nimid waxaan idinku nimid marka hore salaan inaan magaalada soo booqano waxaan magaalada u nimid oo la socotaan dalka cadow baa ka jira al-shabaab iyo Daesh labaduba waxay joogaan bari sanadihii dambe waxaa ka asaasmay buurahan cal bari Daesh kabacdina waxaa u soo gudubtay al-shabaab labaduba waa ku nool yihiin sidaas darteed halkan waxaanu u nimid inaanu u kuurgallo xogta cadowga shabaab iyo Daesh aanu wax ka ogaano magaalada amnigeeda aanu ogaano ciidamada BSF-na degmo walba iyo magaalo kastoo ka tirsan Puntland way ka howlgalaan waxayna sugaan amnigooda sidaas darteed degmada isku shuban waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka bari oo hadda aan u idayno in soonaha buuraha cal bari ay ku jiraan cadowga Daeshta annagoo ku nimid sahamin u kurgelid xogta cadowga ah iyo wixii ka jira magaalada xaaladeeda inaan u kurgallo dhanka amniga iyo dhanka arrimaha bulshada intaba sidaas darteed intaasaan idinku nimid maanta annagu waxaan ku darayaa xoogaa daawaa waan badnayn markaan leeyahay aan badnayn dawo degmo ma aha laakiin waa degmo baaxad leh baa timi degmo weyn ah laakiin daawadaasuna waa dawo laakiin tayo leh oo wanaagsan oo ah dawada dhallaanka iyo haweenkooda hooyada iyo dhallaanka dawooyinka hooyooyinka iyo ilmaha weyn aan idiin wadnaa iyadana inaan ku wareejina rabnaa haddii alla idmo ciidankuna maxay yihiin ilaaliyihii qaranka weeye ee dalka haddii markaa shacabku la shaqayn ciidankii farkale farmar ilaaliya shacabku inuu la shaqaysaan ciidanku